qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka aqoon-yahano dhalinyaro ku dhaqan degmada Afmadow oo kulan gaar iskugu yimid ayaa si buuxda u taageeray Dool Maxamed Salaad oo u taagan ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay taageersan yihiin Dool Maxamed Salaad isla markaana uu yahay nin aqoon-yahan oo ka soo bixi kara booskaasi. odayaasha ayaa sidoo kale ku amaanay musharax Dool inuu yahay nin wax badan ka soo qabtay deegaanada Jubbaland isla markaana matali kara shacabka reer Afmadow ayna codkooda siiyeen. musharaxa u taagan xildhibaannimada degmada Afmadow Dool Maxamed Salaad ee federaalka dowladda federaalka iyadoo taageero ay u jeedinayaan dhammaan odayaasha degmada Afmadow hambaliyadaasi oo loogu hambaliyanayo inuu u sharaxan yahay xildhibaannimada degmada Afmadow Dool Maxamed Salaad oo dowladda federaalka diyaarsan. hadda waxaan ku wareejinaynaa waana qaadanay haddaan nahay dhalinyaradii degmada iyo odayaashii. waxaan ku wareejinaynaa Cabdi Olol. bismillaahi raxmaani raxiim. odayaasha waasiyada dhalinyarada isugu timid xafladan lagu taageerayo Dool Maxamed Salaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacdi salaad haddaan nahay degmada Afmadow dadka ku nool ama waxgaradka khaasatan beesha reer Khalaf Guun waxaa u sharaxan Dool Maxamed Salaad waxaana meesha ku dhan oo jooga dhammaan hukumada wixii deganaa degmada Afmadow. marka waxaan taageero buuxda oo dowladda federaalka xildhibaannimo ugu dooranayna Dool Maxamed Salaad. marka haddana waxaan ku wareejinayaa madaxa odayaasha degmada Afmadow Saalax Bashiir. محبوب بسم الله الرحمن الرحيم. دمان انت عرضنا كسو قيب قشي guud ahaan waa salaamantiin dadkaas oo bulshada qaybaheeda kala duwan aad baan idin salaamayaa. salaam kadib Dool Maxamed Salaad waxaa inoo soo gudbiyey qoyskii uu ka dhashay Khalaf Guun sida Maxamed Suweer hadda u yaqaano reer Khalaf Guun baa noo soo gudbiyey. waxay inoo sheegeen ka qoys ahaan inay qaateen dhammaan qoyska deegaankan Jubba zona degmada Afmadow inay qaateen Dool Maxamed Salaad. annagana waa ku soo dhaweynaynaa waana ku taageersanahay waan taageeraynaa. waxa weeye saamiga uu lahaa Maxamed Suweer hadduu ilaahay u kaso walow aan filayo qoysas badan iyo musharaxiin badan inay jirto waxaan codsanaynaa dadka dooran doono loo saari doono lujna loo saari doono dooranaysa saan la soconno inay qaataan mahad oo kalsooni buura ah ka haasto dhammaan deegaanka degmada Afmadow inay doortaan oo qaataan baan codsanaynaa. annagu waan qaadanay. dadka meesha isugu imaaday odayaasha iyo dhalinyarada iyo waxgaradka degmada dhammaan waan salaamaynaa. salaan kadib insha allahu tacaala arrimahan la soo gudbiyey ee ah xafladan Dool Maxamed Salaad waanu soo dhaweynaynaa si gacmo furan ee wanaagsan dhiirigelinna baan u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala. waxyaalaha nala soo gudbiyey sida ay tahay baan u qaadanaynaa. marka saasaan ku taageeraynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaah. Dool Maxamed Salaad ayaa ah musharax u taagan ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka dalka ee la filaya in dhawaan la soo dhiso. ayadoo musharaxani uu yahay aqoon-yahan wax ku soo bartay dalka dibadiisa isla markaana had iyo jeer u ololeeya nabadda iyo horumarinta bulshada. Ismaaciil Cali Cabdi, warbaahinta Dhanaan Media, magaalada Kismaayo.